ma jiro gudoomiye xamar degan oo aan najax ahayn. kulan maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa cawasho waxa ay kaga muujiyeen nidaamka maamul ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Najax. kulankan oo ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ayaa waxa ugu horreyn hadlay nabadoon Axmed Maxamed Barre iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax ku eedeeyay inuu gabay mas'uuliyadii loo igmaday oo ahayd u shaqeynta bulshada Shabeellaha Hoose. ma jiro gudoomiye xamar degan oo aan najax ahayn. gudoomiyaha oo Shabeellaha Hoose wuxuu joogaa Shabeellaha dhac wuxuu joogaa Jowhar. gudoomiyaha beledweyne wuxuu joogaa beledweyne. Soomasi gudoomiye hay-adaha ku celiyo dadkoodana ka xaniyo wixii dadka la sii lahaayeen asaga qaato maalintooda dhibaatadooda aan ka hadlin waa najax kaliya. marka madaxweyne Cabdicasiis ma rabno qof aan mas'uuliyadda gudanayn inuu dadka madaxiisa ku hayo. gudoomiyaha asaga magaalada uu joogo gudoomiye gobolka Baayo jooga kan Bakool jooga asaga maxaa soo maraa xamar dadka dhibaatadooda ay ka hadlaan. gudoomiyaha gobolka Bakool waxa uu sheegaa maalin kasta dadka biyo ay leeyihiin waxbarasho ay leeyihiin jidad ay leeyihiin amni ay leeyihiin kan Baydhabo sidaas oo kale kan beledweyne sidaas oo kale kan Shabeellaha Dhexe sidaas oo kale. najax asaga maxaa ku hayo xamar waxaa ku hayo mas'uuliyad darro iyo waxgala darro iyo koontarool la'aan iyo anagu waxaan rabaa yeelaa annagu haddaan nahay dadka Shabeellaha Hoose degan mas'uuliyaddaas ma yeeleyno. kacdoon dadku waa sameynaa haddii dadku waxa lagu hayo laga goyn waayo dadka kacdoon ay sameynaa kacdoon haddii sameeyana lama celi karo bir waxa lagu yahay fidnada maxaa loo kiciyay amni xumada ka jirta gobolka Shabeellaha Hoose iyo abaaraha ka jira labo iyo umadiyo markaysa mas'uuliyad xumo iyo waxyaabo aan runtii aysan umadaasi u baahneen in lagu dulhaayo. arintaasna waxa uu sababa eedda waxay ku dhacaysaa maamulka Koonfur Galbeed kadibna waxay ku dhacaysaa gobolka Shabeellaha Hoose dadka ma arkaysa madax ka ah. waxaan leenahay madaxweyne Cabdicasiis umadaas Shabeellaha Hoose ku nool adiga mas'uulka ah mas'uuliyadda ma arkaysa in kaliya ma aha meesha aad joogto magaaladaas Baydhabo iyo intii ku xeedaaman in ma arkaysa maalin walba halkaas ma arkaysa wixii jooga in ma arkaysa umadaas kaliya in madax loo ahaado ma aha. ummadda madax loo yahay waa saddexda gobol ay ka kooban tahay. dadka Shabeellaha Hoose ku nool waxay tirsanayaan cabasho aan ma arkaysa aan la soo koobi karin. gobolka waxaa ka jirta marka runta isu sheegno baahi aan caadi ahayn oo runtii awaaraha ma arkaysa Soomaaliya dhan haya ayaa gobolkaasi ka jirta. biyo la'aan oo ummadii maalin walba ma arkaysa meel aan booyadin loogu dhaamiyay marayaan heer ma arkaysa wabigiyo aan joogin. dadka waxay u baahan yihiin in ceelal loo taago waxay u baahan yihiin in ma arkaysa baahida hayso wax laga qabto waxay u baahan yihiin amnigooda in la ilaaliyo. intaas ma arkaysa waa asaasiga nolosha waaye. hadda intiiba waxaan dareemaynaa inay ummadii ay leedahay haddii ay tahay najaclaysi waa meesheed meel kale hala geeyo laakiin haddii kale meesha hala qabto ma anfacaayo. ummadda waa laayay asigoo ka qaayli lama arko. ummadda meel kasta mafal la geeyo hayaa Shabeellaha Hoose waxay samafal u diiday anaga ma naqaan. dadka qaarkiisa samafal inta loo geeyo hadda wal ay soo celiyoyaan diyaaradu wala soo celiyoyaan ayagoo raashin wado. marka Shabeellaha Hoose wixii cunaqabataanka ku riday amba loo qaaylan la yahay amba mataqaana ma mas'uuliyiin ay laheen ma gobernator ay laheen ma dad ay nidaamka anaga wax aan fahanay ma ah. wax aan qaadanay naas nuujin hadda ninka dilo rabo amba faraq wax loo soo nolol loo soo hadii kale meel kale la geeyo naas nuujin laakiin ummad iyo loo korbaabeenen ummadda anaga wax u garad anaga mataqaana dhaqan u anaga afhayan u waxaasna wax la qaadi karo ma aha. waxaan leenahay ninkaas dadka la qabto haddii la qawaaydo in la qowdoono waa maleynaa. dhinaca kale waxaa hadlay Xuseen Cali Macalin wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ahna gudoomiye ku-xigeenka madasha samata bixinta Koonfur Galbeed waxaana wasiirka uu sheegay bulshada gobolka Shabeellaha Hoose inay wajahayaan macluul daran iyadoo gudoomiyaha gobolka Muqdisho ku sugan yahay. waxa uu ku saabsan yahay arrimaha gobolka Shabeellaha Hoose oo aad noogu soo noqday dhibaatadooda oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Cabdicasiis Laftagareen oo mar waliba nin gudoomiye uu soo magacaabo intii uu xilka joogay Cabdicasiis Laftagareen
4 sano xilka joogaa 4taas sano wuxuu soo magacaabay nin najax la yiraahdo Ibrahim Najax 4 digreeto ku soo saaray 4tiisa digreeto uu soo saarana waxay qosaysaa in uu mar waliba u magacaabo gobernatoraha gobolka ninkaas gobernatoraha gobolka waa ku fashilmay sida la wada ogyahay gobolkii uu dayacan yahay mas'uuliyiin badan gobolka ku dhimatay oo gudoomiye waafu ugu horeeyo iyo afgooyo kale mas'uuliyiin kale oo badan ku dhinteen ilaa ay haddana wax waa laga qaban leeyahay ninkii gobernatoraha gobolka loo magacaabay mar waliba wuxuu joogaa gobolkan Banaadir marka gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa gudoomiye gobolka ah isagii marka wuxuu faraha kula jira gobolkan Banaadir inuu iska joogo oo canshuurta inta uu ku qaato uusan hal mar xitaa tegin Baraawe iyo maxaa la dhahay iyo gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose Baraawe iyo degmooyinka kale ma tago kaliya mar uu afgooyo tagaa markaasna wuxuu ka soo qaataa canshuur iyo wax la mid ah marka madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu sheegaynaa ninkaas najax la yiraahdo haddii ay ka tahay maxaa la dhahay ku dhib oo dadka Shabeellaha Hoose ku dhibaysa taas waa gooni laakiin mar waliba waxa loo baahan yahay ninka mas'uulka oo xilka haya inuu waajibaadkiisa guto uu gobolka Shabeellaha Hoose ka warqabo xarunta gobolka Shabeellaha Hoose marka waa wiligiis hal maalin hadduu ku tago waa laga yaabaa safar iyo waxaas inuu ku tago laakiin wiligiis hal maalin ma jiifan xasan cabdi warbaahinta goobjoog muqdisho